barnaamijka qaybtiisa hore ee uu soo diyaariyay qoraaga weyn Axmed Faarax Cali Daaja waxaan ku darayaa oo kaliya hees igu reebtay urku taalo iyo la yaab waa heesta la magac baxday urugada jacayl waa heesta ay baxsan qaado heesaheeda jacaylkana aan ugu jeclahay waxaad samoodaa inuu Daaja ula kacay dhankaas iyo wadaniga oo kaliya balse uusan waxba ka aqoon dhanka heesaha jacaylka ee ay tirisay waa baxsan Saynab Xaaji Cali Baxsan waxay ku badnayd heesaha wadaniga mana dafiri karno balse waxa jidho heesa jacayl oo ayagana aan la diidi karin waxa heesahaas kamid ah heesta aan idin sheegayo ee urugada jacaylka qaybteeda hore waxaad moodaa in qof ay jecelayd inta uu waxa ku abuuray jacayl oo haddana kaga dhaqaaqay meel cidla waxayna erayada ugu horeysa leeyihiin urugada ay haysaa uurka hoosiyo laabta uumayba kacaayo cishqigan la asaabay isaga igu abuuree axdi baynu lahayne malaha waaba ilaaway axdi baynu lahayne malaha waaba ilaaway haddaba heestan oo aan idin soo dayn doono waxaan filayaa inaad igula raaxaysan doontaan waa Saynab Xaaji Cali Baxsan waa wadaniyadii codka tolmooneed miraha heestana waxaa kamid ah أحد بين الله ملا وابي لاوي الله إلهي إريا يعد يناحيد با هيستو أسكو درستي وحاس لياب كوكسي نقون دونتو قيبت هذا دنبئة هيستا أنيقا أوركو تالada gaarka igu reebtay ayaa inaan dhageystay laba hameen ka gadaal geerideedii heestan oo aan horaantii geerideedaba aan dhageystay iyada oo nool waxaan ku baraarugsanayn ama aanan dareensanayn erayada mugga weyn ee aad moodo inay kaga hadlayso inay kamid noqon doonto uunka aakhiro balse waxaan dareemay oo ku baraarugay kadib geerideedii laba hameen jimca soo galayso ayay ahaydee erayada cajabiyay ee aan la yaabay ayaa ahaa waanu ibtiloobo Israa'iil nafta qaada isaga igu ahaaye ifka iguma laabno aakhiraan u socdaaye waana qaan qabrigayga la igu aasi lahaaye waxaan codkeedaas dhadhansigii codkeedaas kadib aan sii dareemay erayada mugga iyo culayskaba leh ee ay kaga hadlayso inay noqonayso uunka aakhiro bal ila dhageyso qaybta dambe ee heesta وانو إبتلابو أسرائيل نفتقا